waa hagaag daawadayaal warka caalamka ee dalka TV ayaa la socotaan warbixino kale oo xiiso badan oo gudaha iyo dibadda ayaa inoo soo socda balse markaan haddaan idiin soo gudbino warbixin ka duwan wararkii aad daawateen barta TikTok waxa ay ka mid tahay baraha bulshada Soomaali badan ayaa bartaasi isticmaasha oo gudaha iyo dibadda ku nool waxaana inta badan lagu soo bandhigaa muuqaalo 15 sekin ka kooban oo markaa dhalinyaradu qaarkooda ugu badan ay soo bandhigaan majaajilooyin iyo sidoo kale muuqaalo kooban oo markaa dadka ka qoslinaya haddaba magaalada Muqdisho waxa ku nool dhalinyaro iskuuley ah oo intii isaaruursatay sameeya barnaamijyo xiiso badan dhalinyaradaas oo aan la kulana waxay noo sheegeen in dadka badan 12 milyan ay bartooda ku xiran tahay isla markaana ay sababaha ay u sameeyaan majaajilooyinka oo barta ay ku soo bandhigaan ay ku sheegeen inay tahay in dadka markaasi isku buuqsan ay ku daweeyaan wariyahana Maxamed Yaxyi Jiino ayaa dhalinyaradaas la kulmay warbixintan ayuuna inooga diyaariyay qabiltu ruuxan waxa ay taliga meesha la keenayo siiqo aan ifa bas iswaameyne baash naga gabagabay aan meesha ka tagne ma meesha ko waa tagne meesha waa koox arday ah bartooda TikTok ee school team waxa ku xiran in ka badan 10 milyan oo daawada ah si bartaan aad caan uga noqoto waxa muhiim ah inaad taqaan xirfadaha dadka ka qoslinta aragtiyo muuqaalo kooban laga sameeyo iyo habjilin macaamiisha soo jiidan kara ya kuma qabeen ma macsiyad la rabtaadu eega tagtagoogaha ka qarni aasaha kooxdan iskooleeda ah waa Cabduqaadir Cali Maxamuud marka la joogo TikTok waxa la yiraahdaa Bilaal Bulshaawi waxa uu ka hadlayaa ku soo biirida TikTok maalmaha kamid anagoo iskuulka joogno waxa go'aansan markii inay fikrad isku darsano fikradii aad duubnay anagoo jecleen ina galabtii guriga ku duubno wiilku wuxuu yiri marka galabtii aniga shaqaan leeyahay wiilkuna wuxuu yiri bareefada leeyahay anigana gurigaan iska joogo markaas waxaan go'aansan markii ina iskuulka iskaga qabanno iskuulka markaa ku qabanay shooba dadka waxay rabeen wax qurux badan oo isheeg talent ah oo isheeg challenge cusub oo isheeg hal abuur cusub hal abuurkii la nimid haddana dadku waxay xiiseynayaan haddana uniformka dad isku dhar waa xiiseynayaan haddana wixii quruxda badnaa farsamadii aanu aqoonay dadkii oo talent leh iskuulka dhexdiisa ku sameeyeen markii dambe waana la qurxanaa weysay iskuulkii waa laakiin ilaa hadda waa wadnaa barnaamijka luuq ku caan baxay TikTok jiro oo dhabarkeena ku yaalo marka barnaamijka waa sii socayay videoga kala kac marka waxa go'aansan marka inaan sameeysano hashtag aan kala kacsano hashtag hadda wuxuu marayaa viewskiisa 12 milyan hashtag waxa la jeednaa wax anaga noo aqoonsado oo hadhowda noo soo raacay Bilaal Bulshaawi iyo saaxiibadiisa waxay aaminsan yihiin in jiliinkooda uu daawo u yahay dad badan oo isku buuqsan faa'iidada laga leeyahay waxay tahay in Soomaalida dad waxa jiraan stress hayo dadkaas horta daawo u noqonaa oo waa daaweynaa waxaan daawo ugu noqonaa ayagana soo wacay waxay leeyihiin stresska naga baabi'isiin anagoo xanuunsan anagoo waa la rabno idinka in ku qoslo marka waa ku soo wacayaan waxay ku leeyihiin hambaliyo commentiyada xitaa akhriso arki kartaan marka aad iyo aad u mahadsan dadkana dhaqaajiya waa dadkaas niyo xabadaan dhacoosina ka warjiri waa brad maalmahan quruxdaada ka shakisnaa 40 ku jirtaaye markay dhimatid soo wac maxaa ku soo wac bro ambulance oo isbitaalka ka gaarsiisa oo ku soo dir lahaye soo wac okay bro taleefanka la haygu dhageysanayaa isku imaatika dhalinyaradan kaliya maaha in ay dadka ka qosliyaan ee xiliyada qaar waxa ay wada jir u diyaariyaan casharada iskuulka oo ay hadda marayaan sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare waxa ay ku haminayaan in ay bandhigooda magac ka sameeyaan magacayga waa Xawaayis Kariye Maxamed Cabdiraxmaan oo magaceer Armaan Maxamed waxa kamid ahay team school waxaan nahay Afrika wallahi waxaan horta ku dooranay dad comediya oo macnaad ka qosliyo inaan noqdo horta ani hantiida waan jeclahay inaan noqdo qof social media laga garanayo dadkana ka qosli kara oo talent leh بعدين waxaa jeclaystay dadkina inay ka qosliyo waqti aasiyo oo wadada kaliya oo macnaha ay furan ay tahay arkay TikTok asin yahay maadaama asiga waqti badan ka qaadina 15 sakin yahay 15 sakin macnaha waxa ka gelimaysa insha Allah siday وانا سؤالي جري تيم اسكو حرنا وانا قري
magacaaga masdaxan magacayga cali cabdullahi cali waaye waxaa ku magac dheerahay cali waaji wallaahi ani hadda macnaha wax kala gooni oo iskugu imaano dadaan Soomaalidan dagaalada iyo burburka iyo waxaas maarkan dadka badan stress ku gidi marka hadda qof waxa arkaysaa oo xanaaqsan hadii videogaaga daawato inay ku qosasho qosolkaas inta marka dadka waxa uu aragnaa inuu stress ka bixinaa oo daawo u yahay dad badan oo waan aragnaa maxaa ku dhahayo video marka qoslisid wallahi kal ilaaba oo qoslay daacada oo qoslay videoyaashan oo kale noo soo badiya waa mahadsantihiin maanta waxaan ansixinaynaa sharciga xaqsiinta dadka dhaqdhaqan gudoomiye calooley khalad waa oo sababna xaqa dadka laga soo qaaday ayaa ka baahan waryaamuhu waa mashruuc nooga bax shirka ka bax marka aan dib u celiyo maskaxdayda 10 sano ka hor oo muqdisho jawigeeda uu ahaa mid dagaal hadda oo ah mid degan waxaa ku muuqanaya in Soomaalida qaar ay social media ay ku soo bandhigayaan waxyaabo maskaxdooda ka maqnaa xilligaasi oo dalka uu ku jiray Maxamed Yaxya Jino dalka TV muqdisho